أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الكثير. أما بعد، waxaan salaan u dirayaa qiimo badan dhammaan asxaabta facebooka ku jirta aynu saaxiibka ku nahay social mediaha ayaan u dirayaa salaan aad iyo aad u qiimo badan. kolley waxa weeyaan ilaahay baa sakhiray inaynu isku aragno meelahan oo kale. laba arrimood aada u muhiima baan ka hadlayaa. labada arrimood waxaan jeclahay inaad mid walba ila fahamtaan, inaad taageertaanna. haddaad taageeri weydaanna waxaad tihiin dad taageerada wanaagga ka soo horjeeda oo hadday idinla noqoto. maanta cambaarayn maaha, waa hambalyo iyo haddii ilahayd mayo inaynu guul ku tilmaanno ayay inoo tahay. waxaan marka hore hambalyeynayaa labada guri ee somalilan, aqalka wakiilada iyo aqalka baarlamaanka. waxaan ku hambalyeynayaa heshiiska taariikhiga ah ee dowladda somalilan ay ku meel marisay wareejinta ama tayeynta ama investmentka maalgashiga ama isticmaalidda ay dowladda united arabic imaaraat ku samayn doonto madaarka meesha la yidhaahdo berbera. waxa weeyaan waddanka qaran baa haddii la doonaya in dowlad laga dhigo waa inaanu reerna meel sheegan, cidna aanay odhan meel baanu gaar u leenahay. arrintaa dowladda markii hore si qaldan baana loogu sheegay oo qaar jintagaagay noogu sheegeen, laakiin markaanu ka fiirsannay, markaanu dib isugu noqonnay, markaanu eegnay waaqiciga, waxaanu ogaanay inay arrintani muhiim tahay. madaarka berbere waa ka guureen, cid isticmaashaa ma jirto, waa la kiraynayaa. saldhig militarina adduunyada waa laga bixiyaa. norway oon deganahay ayaa dalka maraykanka saldhig militari ka siisay meel waqooyiga dalkan oo xadka ruushka u dhow. waxa weeyaan in laga difaaco norway iyo nato ayaa madaarkaa norway u bixisay. norway lafteedana laga difaaco. adduunyada maanta cadow badan baa jira. somalilan meel laga difaaca inay yeelato xaq bay u leedahay. arrintaasi maaha jintagaageynimo, laaluush maaha, corruptionna maaha. waxa weeyaan iska hadlow inay rawaalkiina xaashiye. dalka dekadihiisa iyo madaaradiisa iyo ilihiisa dhaqaalaha waa in laga faromaroojiyaa cid kastoo reernimo ku haysata si uu qaran u noqdo, qaran taabagala siduu u noqdo. xisbiga waddani oon taageero 100% baanu, haddii lahayd mayo waddani markii la eegayo waddaniga laftiisaa faraara yeelanaya. faraarka anigu aan ka tirsanahay arrintaa way soo dhoweynayaan. qaar badan baa sidaa uu xasan guure sheegay ee uu yidhi instruction baa tol ii noqonaya, ayaanu sharcigu tol u noqonaynin ee wax kale tol u noqonayaan. maaha saleebaan gaaloo qura xasan ciise waxaan u jeedaa xasan guure saleebaan gaaloo quruu soo qaatay dadka meesha joogoo dhan. muuse biixibo uma aha instructionka iyo distoorka, uma aha sharci isagaba uma aha. kow baanu ka yahay. waxa weeyaan waxaan leeyahay markaa madaarkaa in la wareejiyo, saldhig militari laga dhigo, ay yimaadaan ciidamo magaalada wax ka iibsada, dadka budget soo geliyo, dakhli soo geliya. haddii lahayd mayo tadawur baa ku jira. investmentka waanu raacsanay, raaca idinkuna wuxuu nala fikirka ahaayow. ta halkaasaan ku dhaafayaa. ta kale waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha loo doortay dalka soomaaliya, madaxweyne cabdilaahi maxamed farmaajo. waxaan leeyahay hawl culus baa kuu taalla.
degdegin waxa weeyaan markiiba sidii ay isku qaadi jireen nimanka kale meesha qabsan jiray hawiye ee iyagoon ifisyoona ka tilin ay odhan jireen dalka oo dhan baanu xukunnaa ha isku soo qaadin meelo kaloo badan gaar ahaan meelaha xasaasiga sida somalilan oo kalaha odhan anaa xukuma waxaad yeelaysaa dowlad adag dhis waxaanu kaa codsan inaanu kugula talinaynaa waata jagooyinkaa laftooda loo qaybsado waxaan adugu yeedha 4.5ka waxaanu doonaynaa in clibkan la qaybiyo loo gudbiyo asxaabtayada si uu farmaajo u arko iyo cidda ku xidhan ee ku dhadhowey waxaanu doonaynaa nin aada iyo aada u mutacalina oo wax badan ku soo kordhin doono dalka aada u taliso marka laga hadlayo jegada ra-iisul wasaare ku-xigeenka inaad ninka la ydhaha mukhtaar cumar caynaanshe oo ah nin aqoon-yahana wax badan xamar tacab geliyey iyo soomaaliya geliyey iyo soomaalinimada halkaa ka jirta inaad u magacowdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxa weeyaan 100% ood weliba jego wasiirnimona ugu darto arrintaasi waa arrin aanu kaa codsanayno talana ah ninkaasi waa nin aqoon-yahana waa nin wax badan soo kordhin kara waa nin ka qayb qaadan kara horu socodka dadka koonfurta soomaaliya ku nool waqooyiga halaysla soo gaadho wuxuu ihi gabadhii dambayso oo ii doonan weeye hadraawi sheekada waqooyiga iyo koonfurta waa gabadh inoo dambayso oo inoo doonan degmo lagu aroosaynu daydayi doonaa haddii la kala go-ayana walaalnimaa lagu kala goy haddii la wada joogayana waxaanu jecellay in walaalnimo lagu wada joogo haddii la kala tegayana in walaalnimo laysku agdeganaado taasi waa mid ummad u taalla masiira mid qofgoyn kara ma aha ummad bay u taallaa dhan weliba ummadda waqooyiga degtay u taallaa haddaanay sidoodii iyagoo caruurta afka ku sita imanin ila ninku hadduu isu talin kari waayo is xukumi kari waayo moogta waa loo taliyaa xaq buu u leeyahy qofku in loo xukumo loo taliyo moogta caruurtaadii gabadhaada haddaad maamuli kari weydo waa lagaa wareejinaya cid kaloo maamuli karaysaa loo geynayaa moogta markaa waqooyiga waxun baa ka socda qabyaalad baa ka socota xunaya iscay xamarna qaraxaan ku dhacay hargeysana qabyaaladda waxaanu kugula talinaynaa inaad ummaddaa u taliso aakhirka waxaan kusoo gebagabinayaa shirkaygan jaraa'id tala ku socota dadka degan somalilan war waa ogtihiin xaqiiqada waa ogtihiin cadaalad daraa laga dagaalamay iyo qabyaalad iyo reerbayna haysta iyo qolayna haysata maantana tiiti ka xun baa dhacda oo socota waxba yaan indhaa laygu gubin gaabis ma aqaano anigu waxba yaan indhaa laygu gubin buu dhahadraawi gaabis ma aqaane buui gaabsi ma aqaane waxba yaan indhaa laygu gubin gaabsi ma aqaane maraa waaxid dadka xilka haya lama caayo maraa waaxid dadka xil aada u dhiibata lama caayo maraa waaxid siiraanye iyo cidda ku dhowdhow aad baa meeshan loogu caayay somalilan isagii qoyskiisa iyo reerkiisa iyo dadkiisaba si xun baa loo caayay arrintaasi meesha may qabanaynin iyaguna si xun bay waxu maamuleen taasina may qabanaynin imakana si fiican ha u wareejiyaan qofkii kala wareegowna la kaalay berita iyaga wax dhaama ha lagugu yimaado 2 kubo xaaglayaan lagaa waayin waan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay galab wanaagsan iyo habeen wanaagsan iyo axad wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu